gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Afmadow Maxamed Cabdullaahi Cismaan Maxamed Amiin ayaa kormeeray ururka haweenka ee nadaafadda degmada Afmadow kuwaasi oo degmada ka waday olole nadaafadeed oo lagu hagaajinayo bilicda degmada. ururka haweenka ee degmada Afmadow ayaa qaybo kamid ah xaafadaha magaalada ka bilaabay olole nadaafadeed ay dib ugu soo celinayaan bilicda degmada, waxaana ka caawiyay maamulka degmada iyo hay'adda maxalliga ah ee Alight. ololaha nadaafadeed ayaa imaanaya xilli cimiladu kuleyl tahay isla markaana ay badan yihiin cudurrada ka dhasha kuleylaha. gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Afmadow ahna duqa degmada Maxamed Cabdullaahi Cismaan Maxamed Amiin oo kormeer ku sameeyay ololaha nadaafadeed ee ka socda qaybo ka mid ah degmada ayaa ururka haweenka ku bogaadiyay shaqada ay u hayaan bulshada. xoolaha way dishaa, magaaladana way ugu fool xumaysaa, wasaqtana way soo jiidataa. marka inta faa'iidada laga helo khasaarada ay keentaa ka badan. haddaan annaga joojino magaalada niraayaan la keenin beddelkeeda waa inaan keennaa wixii kale dadku ay isticmaal lahayn wax ku qaadan lahayn. waagii hore wada xasuusataan warqada la duuduubaa wax lagu qaadan jiray, haday sokor tahay, haday caleen tahay, haday wixii la qaadanayo. marka waxa weeye dambiish horta aan soo celinno, dambiil ma la helo, dambiish aan soo celinno. magaalada Afmadow dabeecadda aan bedelno, dabeecaddan bacda si aan u bedelno, dambiishayna aan soo celinno. dambiishi waa la samaystaa, lacag yar weeyaan ama idinkaaba samaysan kara. dalka caadiga ee waa laga sameeyaa ee gosha ka baxa. waa dambiishi caadiga ahayd inaan ku noqonno, taa waa mid. marka waxaan ogolaanay shirkad madax bannaan oo private ah inay timaado. waxaan ka rabnaa laba arrin inta shaqada ka horow, inta laba arrin inay keenaan. kow, inay gaariga isku roga keenaan. laba, inay meel fog god ka qodaan oo meeshana la duugo. meeshan sun weeyaan, wixii biyo galo, biyihii yimaado ama lagta ama biyihii caadiga roobka u keeno, qashinkaas magaalada laga qaaday iyo timaha iyo qashinka oo dhan waxay gelayaan ceelasha aan biyaha ka cabno. marka waa annaga isdilaynaa, waa sun. si aan u bedelno godka waa la aasayaa. marka horena qalad baa meeshan looga qoday. waxa la geynayaa kawaanka iyo kashe, meesha xoolaha lagu qalo kashe duurkaas in la geeyo, god inay qodaan, halkaas gaariga isku rogana lagu qaado. maxaa soo haray? waxaa soo haray si loo shaqayn lahaa. idinkaa wada shaqaynaysaan iyo idinka iyaga soo wada shaqayn lahayd. shaqadeedina ma aha. wixii kalena waa mataqaana horumar oo magaaladana qaybtiina ka qaadanaysaan hadduu wax noo yimaado, hadduu ilaahay yiraaho. intaasaan rabay inaan idin raaho, waanad mahadsantihiin. qaar ka mid ah ururka haweenka ee nadaafadda ayaa kaga mahad celiyay kormeerka uu ku sameeyay gudoomiyaha, waxayna maamulka ka codsadeen in gebi ahaanba laga mamnuuco bacaha oo saameyn weyn ku yeeshay nadaafadda deegaanka, dhibaatana ku haya xoolaha nool. ururka aad baan idin salaamaynaa, waana soo dhawaynaynaa arrintan. maasha Allah, tabaarakallah, waana ku faraxsannahay inaad nagala qayb qaadatiin. waxa badan oo sanado dhan anaga kali soo wadne adinka iyo gudoomiyaha aad baa u mahadsantiin. maasha Allah, magaaladan anaga nagu dhow oo noo xigaan waa laga suuliyay bac, sida hadda magaaladan xagar oo kale wax yar ay noo jirtaa, xagar bacna waa laga suuliyay. jubooyinkan kale oo gashaas oo kale waan ku faraxsannahay in la suuliyo bac, la suuliyo. dan nooguma jirto, xoolaha dan nooguma jirto, annaga ay dan noogu jirin. 24 saac waxa aan qaadno waa bac oon daldalno. waan ku faraxsannahay in la bedelo, maxay ahayd bac la reebo, dambiil iyo joornaal waxaan ku duubanno. aad baan ugu faraxsannahay, waana soo dhawaynaynaa. gudoomiyaha arrinta uu noo soo jeediyay inaan bac iska suulino, xoolaheena ay dhib u keenaysaa. annaga waxaan qaadno waa bac, 24 saac aan ka shaqayno. bac ma rabno, waan rabnaa inaan dambiil aan helno. 24 saacna joornaal aan ku duubano raashinka aan cunayno. waan rabnaa dambiilahana aan samaysano. waan ku faraxsanahay jeegagana aan caanaha ku shubanno. Xanad Cabdi Yusuf, warbaahinta dowladda Jubbaland, Afmadow.